waxaa si rasmi uga furmay dalka Finland maanta oo Jimco ah shirweynihii ay soo qaban qaabiyeen ururka jahliyadaha Somaliland ee loo yaqaan SSC. dalada guud ee jahliyadaha Somaliland shirkoodan oo ka socda Hotel Hilton ee magaalada Helsinki ee wadanka Finland ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno kala duwan oo ka kala socda jahliyadaha Somaliland ee ku dhaqan qaaradda Yurub. ayaa sidoo kale waxaa lagu soo casuumay xubno iyaguna ka yimid dalka Somaliland sidoo kale dalka Mareykanka oo uu ka mid yahay Professor Axmed Ismaaciil Samatar gudoomiyaha xisbiga oo ciid Faysal Cali Waraabe sidoo kale xubno ka tirsan baarlamaanka wadamada Yurub. horeyntii waxa aan wax ka weydiiyay bal sida uu shirkani u dhacay qabanqaabiyaasha shirka waxaan ugu horeyn aan ku horeysay gudoomiyaha dalada SSC Cabdiraxmaan oo ka waramay hawlaha iyo sidii uu shirku maanta u furmay. haddii aan kaga warramo shirkan maanta soo socdo saaka ayuu si fiican u bilaabmay iminkana weli waxaanu kaga jirnaa bartankii ilaa iminkana waxaa hadlay dhowr qof oo shirka ka hadlay oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha xasan cali garab jooga oo shirka martigeliyey aniga oo wakiilkii dalada waxaa kaloo halkaas ka hadlay xubno ka mid a baarlamaanka dalkan aan joogno finishka oo iyaguna ka hadlay oo Yurub oo wadankan u matasha wadanka Yurub waxaa la gudoomiye Faysal Cali Waraabe isaguna marti sharaf noogu ahaa kulankan halkaas buuna noo socdaa iminka waxaa bartimiyanka weli kaga jirnaa shirka waxaa kaloo shirkaasi aan ku casuuno noo yimid doorkan Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo shirkaasi si qiimo looga hadlay wax badanna ka hadlay haday tahay dhanka ictiraaf doonka haday tahay maamul wanaaga markaa hawlusaas way socdaan meel fiican inoo marayna maamulka weliina uu socdo. waxaa isaguna shirkan isaguna ka hadlay xasan oo ka mid ahaa guddiga qabanqaabada isla markaana ka mid ah jahliyada wadanka Finland. Assalaamu calaykum. shirkan oo ah shirka jahliyada guud ee Yurub ee la yiraahdo SSC ama dalada guud ee jahliyadaha Yurub sanadka waxaa nasiib u yeeshay martigeliso jahliyada reer Somaliland ee Finland marka runtii waxa weeye shir aad u qiimo badan aadna qurux badan buu noqday waxaan nasiib u yeelnay inaanu helo Professor Samatar Dr. Jaamac Muuse iyo gabadha la yiraahdo Liisa Yakansaari oo ah member baarlamaanka Yurub ka mid ah waxaa kaloo yana ka soo qayb galaya madax badan oo wadanka Finland waxaan u muuqdaa runtii shir waqtigii loo baahnaa lala helay goobtii looga baahnaa taasaan leeyahay waan mahadsan. xasan cali oo isaguna ah gudoomiyaha jahliyada Finland ayaa ku tilmaamay inay sharaf weyn u tahay wadanka Finland in ay sanadkan ay martigeliyaan shirweynaha dalada guud ee SSC. sidii uu sheegay xasan maxamed nuur runtii sidii ilaahay mahadi sababtoo ah sidii waqtigiisii loogu talagalay buu u socdaa barnaamijkana si aad iyo aad u wanaagsan buu u socdaa sida uu xasan sheegayba dad madaxa oo wasaarada kala badan oo wasaarad kala duwan iyo hay'adaha internationalka ee ka qayb qaata horumarinta Somaliland iyo dhammaan asxaabta Somaliland ba ka soo qayb galay oo kule wada hadalkii nin qof walibana uu socdaa qaybtiisii aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dalmar telefishinka qaranka Somaliland magaalada Helsinki wadanka Finland.